Salaamullah saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah ee maanta aan kaga hadlayno xaaladda dalka Iiraan. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir si aan kuula wadaagno xogo sugan. Mahadsanid. Dalka Iiraan waxaa weli ka socda banaanbaxyo ballaaran oo ka dhashay xaaladda dhaqaale ee sii xumaanaysa, kuwaasoo hadda isku beddelay kacdoon siyaasadeed oo laga soo horjeedo maamulka sare ee dalkaas. Dowladda Iiraan ayaa qaaday tallaabo adag iyagoo gabi ahaanba jaray adeegii internetka ee dalkaas. Ururka la socodka internetka ee NetBlocks ayaa xaqiijiyey in dalku uu ku jiro mugdi xagga internetka ah, taas oo meesha ka saartay in dunida ay aragto xaqiiqada dhabta ah ee ka dhex dhacaysa gudaha Iiraan. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa la soo dhoobay waddooyinka si ay xoog ugu xakameeyaan dibadbaxyada. Wararka hordhaca ah ee soo baxay ka hor intaan internetka la jarin ayaa sheegaya in boqolaal qof la rumaysan yahay inay ku dhinteen iska horimaadyada, kumanaan qof oo kale la dhigay xabsiyada, kuwaas oo lala xiriirinayo inay horkacayaan rabshadaha. Dadka ayaa ka cabanaya sicir bararka oo gaaray heerkii ugu sarreeyay iyo qiimaha lacagta dalka oo aad hoos ugu dhacay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul u cambaareeyay falka dowladda Iiraan, isagoo sheegay in Mareykanku uu si dhow ula socdo xaaladda. Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta ku yidhi nidaamka Iiraan waxa uu u muuqdaa mid qarka u saaray inuu burburo. Hoggaanka sare ee kacaanka Ayatollah wuxuu raadinayaa meel uu magangalyo ka helo. Trump hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, waxaan si dhow ula socdaa geesinimada dadka Iiraan. Dhanka kale, madaxda Iiraan ayaa ku eedeeyay quwadaha reer galbeedka inay iyagu ka dambeeyaan kicinta dibadbaxyadan, iyagoo ku tilmaamay qorshe lagu wiiqayo amniga qaranka Iiraan. Xaaladda dalka Iiraan ayaa hadda maraysa meel xasaasi ah, iyadoo dadka banaanbaxaya ay ku dhawaaqayaan halkudhiyo ka dhan ah hoggaanka sare, halka dowladduna ay u muuqato mid adeegsanaysa awood kasta oo ay ku damin karto kacdoonkaas.